بسم الله الرحمن الرحيم كنا وناكسن داوديالا كسو دوادا برنامجka falaaqaynta wararka barnaamijkan caawa gebi ahaanba waxaynu ku soo qaadanaynaa Israa'iil ma uga dhamaatay xadgudub dambe ay ku samayso hawada waddanka Syria arrintan jawaabteedu waxay ku aadan tahay kadib markii la xaqiijiyay Turkiga inuu si rasmi ah ula wareegayo mid ka mid ah saldhigyada ciidamada cirka ee dalkaasi Syria waa saldhigga liira T4 ee ku yaal magaalada Palmyra halkaas oo la sheegayo in la dhigi doono nidaamyada difaaca hawada oo dhowr lakab ah arrintan ayaa waxa la sheegayaa inay ka dambeysay heshiiskiisa afgaradka ah ee magaalada Ankara ku dhex madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan iyo dhigiisa dalka Syria Ahmed al-Sharaa Israa'iil tan iyo bishii December ee sanadkan ka soo gudubnay waxay ka waday waddanka Suuriya xadgudubyo kala duwan oo ay ka mid tahay in ay burburisay nidaamyadii difaaca ciidamada cirka gaadiidka dagaalka saldhigyadii garoomada diyaaradaha doonyihii dagaalka maraakiibtii iyo waliba dekedihii ciidanku ay isticmaali jireen waxaana taasi ka dambeysay kadib markii meesha uu ka baxay maamulkii Bashar al-Assad iyadoo ku andacoonaysa Israa'iil in qatar ay ku yihiin xooggan qabsaday Syria amnigeeda haddaba arrintan imika soo baxday ee u muuqanaysa Turkiga inuu garab istaagayo Syria meesha laga saari doono fuduusha iyo gardarrada Israa'iil ayaynu barnaamijkan ku falaqayn doonaa Maxamed Cabdi ayaa soo akhriyay macluumaad arrimahan ay ka qortay shabakada Middle East Eye ee ka faalootay arrimaha gobolka Bariga Dhexe Maxamed warbixinta bal hadda inoogu bilow sida ay xogtan ku heshay iyo macluumaadkan soo baxay Turkiga ayaa bilaabay baa leeyahay dadaalo uu kula wareegayo gacan ku haynta garoonka diyaaradaha ee Tayas oo loo yaqaano T4 ama T4 waxaana la isu diyaarinayaa in Turkiga uu geeyo halkaasi nidaam difaac cirka ila arrimahan la socda ayaa u xaqiijiyay shabakada wararka ee Middle East Eye qorshahan la dhisayo goobtan saldhigga military ah ayaa lagu waramay in mar horeba ay bilaabatay dowladda Turkiga iyo dowladda Suuriya ayaa in muddo aba ka wada xaajoonayay heshiis xagga difaaca ilaa iyo bishii December arrintaana waxay daba socotaa markii xukunka laga tuuray madaxweynihii hore Bashar al-Assad heshiiska ayaa waxaa ku xusan in Turkiga uu xagga cirka ka difaaci doono goobaha militariga ee xukuumadda cusub ee Suuriya ay leedahay waxaana hadda muuqata in Suuriya ayna lahayn ciidan militari ah oo shaqeynaya inkastoo saraakiisha Turkigu ay arrimahani ka gaabsadeen iyo suuragalnimada ah in ciidamadooda la geyn doono Suuriya haddana waxaa la tilmaamayaa in qorshahani uu yahay mid aan waqtigiisa la gaarin marka la fiiriyo wada xaajoodyada labada dhinac dhex maraya oo wali si tartiib u socda waa gartay marka waxyaalaha sida gaarka saldhigga military u qaban doona iyo qorshaha Turkiga uu ka leeyahay maxaa lagu sheegay halka Israa'iil ay u aragto in militariga Turkiga uu joogo Israa'iil in militariga Turkiga uu joogo Syria ay Israa'iil u aragto in ay arrintaasi tahay khatar dhab ah Turkiga ayaa ujeedadiisu waxay tahay sidii uu xasilin lahaa waddanka Suuriya asagoo isticmaalaya awoodiisa military isla markaasna buuxinaya meeshii ay ka baxeen wadamada Ruushka iyo Iiraan oo saaxiib dhow la ahaa xukuumaddii hore Suuriya Turkiga ayaa sidoo kale ku tali jira sidii uu u dardargelin lahaa dagaalka ka dhanka ah Daesh oo ah baa leeyahay heshiisyadii ay Turkiga iyo Mareykanka saxiixdeen shuruud ka mid ah in Mareykanku uu ka bixi doono gobolka haddii Turkiga uu la wareego in uu la dagaalamayo Daesh ila kale oo arrimahan la socda ayaa u sheegay warsidaha Middle East Eye in Turkiga uu bilaababa in uu u soo wareejiyo xeradan magaceeda loo soo gaabiyo T4 ee ciidanka cirka ku taala meel ku dhow magaalada Palmyra ee bartamaha Syria adeegyada qaar waxaa la sheegay in nidaamka difaaca cirka ee liirada Haysar la geeyay goobtaasi si uu difaac xagga cirka u siiyo sida ilahani ay sheegeen waxaa sidoo kale ilaha ay sii sheegeen in nidaamkan difaaca xaruntani la dhigay lagu difaaci doono inta dib u dhiska lagu sameynayo laguna ballaarinayo kaabahan muhiimka ah
xukuumadda turkiga ayaa sidoo kale qorsheynaysa in ay keento agab kale oo lagula socdo xagga hawada oo ay ka mid yihiin diyaarad drones oo hubeysan. sidoo kale waxa ay ku ballaarin doontaa difaaca awoodda cirka agabyo kale. waa gartay marka haddaynu marka dul istaagno nidaamkan muxuu ka tari karaa sugidda amniga hawada waddanka Suuriya oo imika baylaha ah? ilahan ayaa waxay u sheegayaan warsidaha in xaruntan militariga ciidanka cirka ay leeyihiin gacan ku siin doonto Turkiga sida uu abuuri lahaa xakameyn buuxda oo xagga cirka ah ee gobolka oo dhan. wuxuuna sidoo kale ay gacan ku siinaysaa sidii uu u meel marin lahaa taageerada iyo dadaalada uu kaga hortegayo ururka Daacish. weli waxaa jira unugyo dhuumanaya oo Daacish ka tirsan oo ku sugan saxaraha Suuriya. Turkiga ayaa ugu dambeyntii ujeedadiisa weyn waxay tahay sidii uu ku abuuri lahaa nidaam difaac oo lakabyo kala duwan leh oo xagga cirka ah. xaruntaasi T4 la yiraahdo iyo agagaarkeeda waxayna taa ka mid noqon doonaa gantaalo difaaca dhow ah, kuwa difaaca dhexe ah iyo kuwa difaaca fog ah oo xagga cirka ah oo ka dhan ah khatar kasta oo soo wajahda waddanka Suuriya. sidoo kale diyaaradaha iyo kuwa aan duuliyaha lahayn iyo gantaalada intaba waa laga difaacaya. il kale ayaa waxa u sheegtay wargeyskani in Turkiga joogitaankiisa ciidanka cirka iyo qalabkiisa militariga iyo diyaaradiisa aan duuliyaha lahayn ay cabsi gelin doonaan Israa'iil oo dhowr goor xagga weerar cirka ku qaaday deegaankaasi. nidaamka wasaaradda difaaca ee Turkiga ayaa ka gaabsatay inay arrimahani ka hadasho. waa gartay dhanka Israa'iil ilaa iyo hadda ma jira wax rasmi ah ka soo baxay oo la xiriira tilaabadan waxa ay uga dhigan tahay xadgudubadii ay ku sameynaysay waddanka Syria cirka dhulka iyo badda. Israa'iil ayaa si joogto ah u bartilmaamaysan jirtay agabyada militariga iyo kaabayaasha militariga ee waddanka Suuriya, gaar ahaan xukuumaddii Assad ee burburtay bishii December. dhowaanna waxa ay dardargelisay Israa'iil weerarada xagga cirka ee ka dhanka ah goobo badan oo Suuriya uu ka mid yahay saldhiggan ciidanka cirka ee T4 ay Turkiga la wareegeen toddobaadkii la soo dhaafay. ciidanka cirka ee Israa'iil ayaa T4 weeraray iyo garoon kale oo diyaaradeed oo Balmeero ku yaala oo ah magaalada uu ku dhow yahay T4. waxa ayna bartilmaameedsadeen garoonka diyaaradaha iyo goobo istiraatiijig ah. ila ku dhow ciidamada amniga Israa'iil ayaa u sheegay warbaahinta in haddii Turkiga nidaamkiisa difaaca cirka la keeno Suuriya in arrintaasi ay caqabad weyn ku keenayso xorriyadda ay Israa'iil u haysato in ay howlgallo xagga cirka ah meesha rabta ka fuliso waddanka Suuriya ka mid ah. arrintaana waxa ay khatar sugan ku keenaysaa baa leeyahay Israa'iilna sida ay ilahaasi sheegayaan waa kasoo horjeedaa. xiisada u dhaxaysa Turkiga iyo Suuriya, xiisado badan ayaa u dhaxeeya, ayaa sii dardargalay wixii ka dambeeyay markii uu bilowday dagaalka ka dhanka Mareykanka Gaza Oktoobar 2023. hadda waxaad moodaa in xilli kumeel gaar lagu jiro dib u heshiisiin labada dhinac iyo wada xaajood u dhex marayo, laakiin ilaa hadda wax ka soo naasacdaada ma jiraan. wixii ka dambeeyay markay dhacday xukuumaddii Bashar al-Assad, Turkiga ayaa noqday awood ballaaran oo Suuriya garab iyo taageero u noqotay, taas oo walwal weyn ku keentay Israa'iil. haddana waxaad moodaa Israa'iil inay u aragto Turkiga in uu khatar weyn ku yahay oo ka weyn midii Iiraan gobolka Bariga Dhexe. waxaa sidoo kale la sheegayaa Israa'iil waxa ay bartilmaameedsatay xaruntii ciidanka cirka ee T4 dhowaan. fariinta ay direysana waxa weeye baa la yiri inaynan u ogolaaneyn khatar kasta nooc kasta ha ahaatee in ay xakamayso awoodda iyo xorriyadda aan cirka Suuriya ku marno
sida ilaha amniga Israa'iil ay u sheegeen wargeyska la yiraahdo Washington wargeyska la yiraahdo Jerusalem Post. waxaa kaloo jira warar sheegaya suurtagal inay tahay in gantaaladii ruushka oo Mareykanku aan ku celiyo halkan waxaan ula jeedaa gantaaladii Turkiga uu ka soo iibsaday ruushka in la geeyo halkaasi gaar ahaan gantaaladii la yiraahdo S-400 suurtagal ma tahay arrintaas maxaa shabakadu ay ka leedahay arrintaas su-aasha inta ka jawaabin daawadayaasha HBN xusuusiyo gantaalada difaaca cirka S-400 la yiraahdo waxay ka mid yihiin gantaalada caalamka ugu casrisan ruushka ayaa sameeya dhawaan waxa iibsatay Iran horena markuu Turkiga uga iibsaday Mareykanka xiriirkii Mareykanka iyo Turkiga uu xumaaday haddii aan jawaabtaada ku noqdo warsidahan la yiraahdo Middle East Eye ilo uu soo xiganaya ayaa dabool ka qaadaya in dowladda Turkiga ay ka baarandegayso si ku meel gaar ah in nidaamka difaaca cirka S-400 ay geyso xaruntan cusub ciidanka cirka balmeera u dhow T4 la yiraahdo si ay u xaqiiqsato hawada sare wadanka Suuriya oo dhan si uu gacanteeda u galo inta dib u dhiska dadaalkiisa u socdo si kastoo ay tahay go'aan rasmi ah oo kama dambaysa weli lama qaadan hase ahaatee ruushka ayaa looga baahan yahay marka hore in ay Turkiga weydiiso in agabkan la geyn karo meel kale dhanka kale Turkiga iyo dowladda Mareykanka ayaa wada hadallo muddo dheer ku jiray sidii cunaqabataynta Turkiga lagu soo rogay looga qaadi lahaa kadib markii ay ka iibsatay ruushka gantaalkan halista ah ee difaaca cirka S-400 sababta uu Mareykanka saas u yeelanay waxa weeye gantaalkan difaaca cirka S-400 la yiraahdo diyaaradiisa ayuu khatar ku yahay waxayna horseeday in Turkiga ay laga saaray in barnaamijkii diyaaradaha casriga ah jiilka shanaada F-35 loo yaqaan ee Mareykanku sameeyo sanadkii 2019 bishii la soo dhaafay telefoon waxa ku wada hadlay madaxweynaha cusub ee Mareykanka Donald Trump iyo dhigiisa wadanka Turkiga Tayyip Erdogan waxayna ka wada xaajoodaan in ay suuragal noqon karto in Turkiga dib loogu soo celiyo barnaamijkii hore looga saaray 2019 ee diyaaradaha F-35 sababaha keenaya in wada hadaladan la yeeshan waxa kamid ah in Turkiga uu gaaray isku filaansho xagga wax soo saarka diyaaradaha cirka jiilkii shanaad diyaarada uu leeyahay uu soo saaray oo kamid ah kuwa adduunka ugu casrisan sida la sheegay waxa kale uu markii cunaqabataynta lagu soo rogay kadib uu soo saaray diyaaradaha droniska ee caan baxay Bakhtaarka la yiraahdo oo ayagana meelo fara badan guulo waaweyn ka soo horiyay Liibiya dagaalkii Azerbaijan iyo Armenia dagaalkii Ethiopia iyo jabhadda Tigreega haddana waxa ay si xoog leh uga howlgalaan wadanka Suudaan oo ciidamada lagu taageero iyo wadanka Soomaaliya marka laga arkay nin uu horumar weyn xagga difaaca cirka ama ha noqoto xagga gantaalada ama ha noqoto xagga diyaaradaha kuwa aan dowliyaha lahayn iyo kuwa dowliyaha lehba ayaa Mareykanku waxay moodaa inuu go'aansaday in uu rabo inuu ku soo celiyo heshiisyadii hore loo galay waxa khabiirada qaar ay hadalka u dhigayaan waxa weeye baahida ayaa keenta in wadan uu horumar gaaro wadanka Iran ayaa muddo fara badan waxa lagu hayay cunaqabatayn uu Mareykanku hayay haddana waxay kamid tahay gobolada bariga dhexe ciidamada jooga kuwa ugu horumarsan xagga cirka markay noqoto xagga gantaalada markay noqoto xagga markay noqoto askarta oo la qiyaasayo ciidamada qalabka sida oo gaar ah ciidamada ilaalada gacaanka oo gaar ah iyo ciidamo kale oo besiege la yiraahdo oo la yiraahdo ciidamada mutadawiciinta ah ka barbar dagaalama ciidamada rasmiga ah intaas oo dhan marka laga gudbo wada hadalka Mareykanka iyo dhexmaray Turkiga waxa laga yaabaa hadda wax natiijo oo rasmi ah ka soo baxa ma jiraan laakiin wali waxa ka baaran degaya Turkiga waa gartay maxay tahay maxamed sababta Mareykanku uu careysan yahay gantaaladan S-400 Turkiga uu ka soo gatay Ruushka gantaaladan S-400 la yiraahdo waxay ka mid yihiin gantaalada ugu casrisan ee nidaamka difaaca cirka gantaaladani
marka la fiiriyo qawaaniinta Mareykanka Turkiga waxa waajib ah in uu ka takhaluso gantaaladan 400 S400